قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، weli waxaan ku dhex jirnaa suuraddii kahf. waxaa noogu soo dambeysay wiilashii asxaabulkahf qisadoodii oo noo dhammaatay. sidaa darteed waxaa noogu soo dambeysay inuu ilaah yidhi ha dhihin shay, waa samayn doonaa shaygaa aniga birito ilaa inaad dhahdo ilaahay hadduu doono maahana inshaa allah. rabbigaa xus haddaad hilmaanto waxaad dhahdaa rabbigay wuxuu mudan yahay kaku ka toosan oo ka hanuun badan inuu igu hanuuniyo. reer kahf waxay godka ku jireen buu yidhi ilaahay 300 oo sano iyo 9, macnaha 300 siniina wasdaaduu 9. 300 oo sano 9na way siyaadsadeen. ilaahay ayaa ku cilmi badan intay ku nagaadeen, waayo samaawaadkii arlada qeybkooda buu ilaahay leeyahay. aad buu wax u arkaa una maqlaa. alla sukadiisa weli idinma sugnaan, xukunkiisana cidna lalama wadaajiye. aqri oo raac waxa lagu waxyoonayo oo kitaabka ilaahay xaggiisa ah. wax bedelitaan oo kelimaadka ilaahay la bedelaan ma jiro. alla sukadiisana meel la iisho oo la magan galaa markaa ma laha. wasbir, ku xabis rasuulka ilaahayow, nafsaka nafsadaada maca aladiina kuwii micigooda yadcuuna caabudahay rabbahum rabbigood bilghadaati subaxdii iyo walcashiyi galabtiiba, yuriiduuna xaal ayhin kuwii doonaya wajhahu ilaahay wejigiisa. walaa tacdu ha iilin oo ha ka leexinin caynaaka labadaada indhood canhum xaggooda, turiidu adigoo doonaya ziinata alxayaati ddunyaa xayaatadan iyo noloshan dhow ziinadeedii quruxdeeda. walaa tutic ha ateecin oo ha maqlin oo warkiisa ha yeelin man aqfalna ku aan daboolnay oon qunfulnay qalbahu qalbigiisa can dikrina dikrigeena xaggiisa aan ka qufulnay oo aan ka daboolnay oo watabaca raacay hawaahu hawadiisa. wa kaana amruhu amarkiisana uu noqday furutan mid xadgudub ah. aayaddu waxay noo tilmaamaysaa dadka ducafada ah ee tabarta daran ee liita inta horeba atbaacda rasusha inay ayagu yihiin. mar allaala marka rasul lasoo diraba dadka iimaanka ugu degdega waa dadka ugu daciifsan xagga maalka iyo xagga jaaha. saa darteed baa mutakabiriinta iyo dadka xoolaha iyo magaca iskale way ka daahaan ama maba rumeeyaanba. rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu la fadhiyey ee nimankii ducafada ahaa, bilaal iyo suhayb iyo salmaan iyo raggii markaa lamidka ahaa. gaalada ayaa waxay dhaheen kuwan ceyri oo naga buri haddaad rabto inaan kula fadhiisano. rasuulku naftiisa waxbaa galay. wuxuu is yidhi kuwan uun haddii ay hortaagan tahay dadkan oo dhinac loo istaajiyo, adigana ay kula fadhiistaan ayagoo qaas ah si ay u rumeeyaan, maad saxaabadaada iska dhahdid waxoogaa isuga aan raggaa qaabile. yayna nagu soo dhiiranina ee dadkan ducafada ah oo tabarta daran oon dharka fiican wadanin yaysan na soo dhex fadhiisanine. horta naga buri ayaga, annaga keligeen nala fadhiisa. haddaad rabto inaan kula fadhiisano la munaaqashooto. tibaa marka nafta nebiga wax ka galay. qur-aankay noogu imaan doontaa suuratu ancaam markaan gaarno. buri bay dhaheen kuwan, yayna nagu soo dhiiranin. walaa tadrud aladiina soo degi doontaa, ha burinin kuwa ilaahay caabudaya subax iyo galabba. haddaad buriso dhaalimiintaad ka mid noqonaysaa.
tiibuu ilaahay ka jawaabayaa naftaas yar ee soo gashay ama naftiisa arrintaa inuu sameeyo iska daa inuu buriyo ama maalin uu ka maqnaadee weligaa dhex fadhi baa la yidhi. wasbir ku sabarsii oo ku xabis nafsaka nafsadaada maca aladiina kuwii la jirkooda yadcuuna rabbahum rabbigood caabudahya bilghadaati waalcashiyi. sharafta iyo wanaagga kuwan ay leeyihiin anaa aqaan buu yidhi ilaahay. kuwaa kibirka iyo madax adayga iyo waxyaabaha ka batay xaqa lagu tuugtuugaayo faraha kala baxi kuwaan dhex fadhi, kuwaan dhex joog, naftaada ku sabarsii, naftaada ku xabis, dhex joog weliga. wasbir nafsaka maca aladiina kuwii micigooda yadcuuna tuugahayoo caabudaya rabbahum rabbigood bilghadaati waalcashiyi subax iyo galabba yuriiduuna ayagoo doonaya wajhahu ilaahay wejigiisa. ujeeddada ay taa u samaynayaanna ay tahay wejiga alle. walaa tacdu ha dadbin, iska dhaaf inaad raggan maalinba faaruqdood ka tagto raggaa aadee ha ka leexinin caynaaka labadaada indhood canhum xaggooda. sidaas igu ee kuwan weligaa dhex fadhi, agtooda joog, dhinac ha uga leexanin. walaa tacdu caynaaka canhum indhahooda xaggooda indhahaaga ha ka jeedinin. turiidu adigoo raba oo doonaya ziinata alxayaati addunya noloshaan dhow ziinadeeda iyo dalaalkeeda. walaa tudic ha ateecin, ha maqlin warkiisana ha yeelin man akfalnaa qof aan daboolnay oon qufulnay qalbahu qalbigiisa can dikrinaa dikrigeena iyo waxyigeena iyo diinkeena aan ka daboolnay. oo watabaca hawaahu hawadiisa raacay. wa kaana amruhu amarkiisana uu noqday furutan mid markaa xadgudub ah. waqul leh rasuulkii allow alxaqu xaqu min rabbikum rabbigiin xaggiisuu ka ahaaday. faman shaaa qofkii doonaana falyu'min ha rumeeyo, waman shaaa qofkii rabana falyakfur ha kufriyo. xaqan waa cad yahay min rabbikum ayuu ka yimid rabbigiin xaggiisa, xag allaa laga keenay. qofkii rabaana ha rumeeyo, qofkii rabaana ha beeniyo. macnaheeda ma aha khiyaar la siiyo. qofkii yidhaahdana anigu ma rabo waa ka tega, qofkii yidhaahda anigu waa rabaana raaci karaa. laakiin qofku mar allaala marka uu diido uu ku kufriyo, inna actadnaa waxaan u diyaarinay anagu lildaalimiina dhaalimiinta naaran naar axaada koobaysa bihim ayaga suraadiquhaa daaheeda iyo jihooyinkeedii gidaarkeedii derbigeedoo dhan ayagoo dhan axaadaysee koobaysa. taasaan u diyaarinay. wain yastakiifuu hadday gargaar weydiistaan yuqaafuu waa loo gargaarayaa bimaa-in biya loogu gargaarayaa oo kalmuhli naxaas la dhalaaliyey oo kale ah. yashwi lwujuuha sharaabka iyo biyaha muhliga oo kale ahoo maqaarkooda duwaaya. yashwi lwujuuh ama maqaarkooda diirayo oo fiiqaya. bi'sa sharaabu cabidkaasaa u baas leh. wasaa'at waxaa xumaaday murtafaqan meel murtafaq ah, meel lagu xusulaysto oo lagu dangiigoo lagu raaxaystana naartaasaa u baas leh buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. xaqu xagga ilaahay ayuu ka yimid, waa cad yahay. xaqu waa xaq waana lagu hadlaa. waqul ilxaqu min rabbikum waxaad ku dhahdaa xaqan iyo qur-aankan iyo diinkan rabbigiin xaggiisuu ka yimid. waa laa shaka waa laa maxaala. waa shay xaqiiqo ah inuu xaqan rabbi xaggiisa ka yimid. faman shaaa qofkii rabaana falyu'min ha rumeeyo, waman shaaa qofkii rabana falyakfur ha ku kufriyo ha gaaloobo. ma akhyaar qofka la siinaye waa qof allaala qofka inta xaqa loo sheegay oo loo sheegay haddana diiday. haddii uu diidan yahay weli qofka haddii la celiyo xushoomi waayo waa la sii daayaa. bax waaye wixii aad ka aragtood ka hesha ayaad leedahee orod oo soco. faman shaaa falyu'min waman shaaa qofkii rabana falyakfur ha kufriya. inaa anagu actadnaa waxaan u diyaarinay lidaalimiina dhaalimiinta waa kuwa kufriyey oo diidaya naaran naar ayaan u diyaarinay. inaysan khiyaar ahayn ayay tilmaamaysaayo qofkii la celin waayey xaqa diida ee markaa raaca wixii xaqa aan ahayn oo xaqii inkira oo ku kufriya inay naar u dambayso. waxay la mid tahay sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala. icmaluu maa shi'tum inahu bima tacmaluuna basiir. waxaad doontaan sameeya, ilaahay waxa aad samaynaysaan waa u jeedaa. inaa actadnaa waan diyaarinay lidaalimiina
daalimiinta naaran naar ayaan u diyaarnay axaata bihim koobaysa suraadiquhaa daaheeda, daaha markaa ku wareegsan ama gidaarkeedaba. wain yastakiifuu waayo dhinac kasta way uga dhex jiraan, ayaga dhexday ku jiraan, geesaha oo dhan waa ka cadaab, kor waa ka cadaab, hoos waa ka cadaab, sida ayad kala tilmaantay suraadiqeeda. wain yastakiifuu hadday gargaar weydiistaan ahlu naarkana yuqaathuu bimaa-in biyaa loogu gargaarayaa oo kalmuhli naxaas la dhalaaliyey oo kale ah, ama gufartii wasaqda saliida aada u kulul oo mar allaala markay damcaan inay cabaanay wejiga usii wadaan wejigooda dubmaaya amase maqaarka kasoo dhacaya, yashwi lwujuuha wejiyaalkooda fiiqayo diirhaya ama gubaya. bi'sa sharaabu sharaab ayaa baas leh, wasaa'ad waxaa xumaatay murtafaqan meel lagu soo dhoweeyo, murtafaq iyo meelay ku dangigaanay ku raaxaystaan, naartaasaa markaa u xun. ina aladiina kubi aamanuu rumeeyey wa camiluu asaalixaati camalada fiicfiicanna sameeyey, innaa anagu laa nudiicu dayici mayno ka halayn mayno ajra man ajirkiisii abaalgudkiisa axsana wanaajiyey camalan camalka. qofka camalkiisii wanaajiyo camal fiican qabtay ma ka xumaynayno, mana ka nusqaaminayno, mana ka dayacayna inta ilaahay rumaysay camal fiicanna qabatay. waxay la yimaadeen camal fiicana, innaa laa nudiicu annaguna dayici mayno oo dhumin mayno oo ku ciyaari mayno ajra man ajirkiisa axsana wanaajiyey camalan camalkiisa. ulaa'ika kuwa iimaankii camalka fiican la yimiday ajirkooda aan la dayacaynin, lahum waxay leeyihiin jannaatu cadnin jannooyin nagaadi ah, nagaadida jannooyinkeeday leeyihiin oo lagu sugnaanayo, tajri xaalay soconaysa min taxtihim xaggooda hoose alanhaaru webiyaalo, yuxallawna waa la qurxiyaa fiiha jannooyinka gudahooda intay ku jiraan waxaa lagu qurxinaa min asaawira jijimooyin oo min dahabin dahab ah. wayalbasuuna waxaa loo labisayaa hiyaaban dhar khudran oo cagaaran oo min sundusin xariirta mideeda jilicsan ah, waistabraqin iyo midda adag. muttaki'iina waxay ku dangigaanay ku xusulaysanayaan fiiha jannooyinka dhexdeeda intay ku jiraan cala al araa'iki sariiro waaweyn oo qurux badan. nicma thawaabu thawaabi abaalgud ayaa nicmo lahaaday, waxasunad waxaa wanaagsanaaday murtafaqan meel ay ku raaxaystaan oo lagu soo dhoweeyo, meel murtafiq ah oo ay ku dangiigaan ay ku xusulaystaan oo ay ku raaxaystaan ayaa markaa wanaagsanaaday. bedel maa dadkii wejigoodii fiiqmay oo gargaar markay weydiisteen biyo kulul loogu gargaaray oo dhinacyaalka oo dhan suraadiqii iyo daahii naarta ka daboolay, waa kuwii xaqa inkirayna la yiri bi'sa sharaabu wasaa'ad murtafaqa. kuwan waxaa loo yiri nicma thawaabu abaalmar ayaa nicmo leh, wax laysku abaalmariyo tan u fiicanay u nicmo badan waaye. waxasunad murtafaqan meel murtafaq ah oo lagu raaxaysto lagu soo dhoweeyana meeshaasaa u wanaagsan. bedel maa kuwii naarta la yiri wasaa'ad murtafaqan meel murtafaq ah oo ay ku dangigaan ay ku raaxaystaan waa meesha markaa ugu xun. ina aladiina kubi aamanuu rumeeyey oo wacamilu asaalixaati camalada fiican qabtay, innaa anagu laa nudiicu ma dayacnee ajra man abaalkiisii ajirkiisa axsana wanaajiyey camalan camalkiisa. ulaa'ika kuwaasi lahum waxay leeyihiin jannaatu cadnin jannooyin nagaadi ah, nagaashaha jannadeeday leeyihiin waa janno lagu waaraayo, tajri ay soconaysa min taxtihim xaggooda hoose alanhaaru webiyaalo, yuxallawna waa la qurxiyaa fiiha jannooyinka gudahooda intay ku jiraan min asaawira jijimooyin baa lagu qurxiyaa oo min dahabin dahab ah. wayalbasuuna waxaa loo labisaa oo loo xirayaa hiyaaban dhar khudran oo cagaaran oo min sundusin xariirta mideeda sundiska ahee khafiifka jilicsan ah, waistabraqin midda istabraqee markaa adag. muttaki'iina waxay ku dangiigaan fiiha jannooyinka gudahooda intay ku jiraan cala al araa'iki sariiro korkooda. nicma thawaabu thawaabi abaalgud ayaa nicmo lahoo wanaagsanaaday, waxasunad waxaa wanaagsanaaday murtafaqan meelay ku raaxaystaan ay ku xusulaystaan. wadrib lahum mathala rajulayni tusaale ayaa nala siinayaa oo qur-aanka wuxuu mathal naga siinayaa laba qofood ama laba nin.
ninna diinka ku dhaqmo oo ilaahay rumaysan oo shirki aan gelin, haddana sadaqaadkii waxbixinta ku dadaala, iyo mid ilaahay aan ogolayn oo daalim ah oo mujrim ah, haddana aan sadaqaadka markaa ogolayn, sida ay kala noqon doonaan adduunii aakhira. wadarib yeel lahum ayaga mathalan waxaa tusaalii mahmaah uga dhigtaa rajulayni laba nin oo jacalnaa aan u yeelnay liaxadihimaa midkood jannatayni laba beerood. labadii nin mid ka mid ah ayaa laba beerood la siiyey oo min acnaabin cinab ah. waxafafnaahumaa waxaan ku soo wareejinay labadii beerood binakhlin timir. ood baa lagu soo wareejiyaa iyo waxyaabo kale, laakiin labadii beerood waxaa waxa daaha u ah derbiga oo lagu soo wareejiyey geedo timira looga dhigay. wajacalnaa waxaanu yeelnay baynahumaa labada beerood dhexdooda zarcan abuur kala duduwan. beerna xaggaasay ugu taalaa, midna meeshaasay ku taalaa. dhexdooda zarci ayaa markaa ku jiray, dhul ma aha. kilta aljannatayni labadaa beerood mid kasta oo ka mid ah aatad way siisaa oo waxay keentaa oo ay ula timaada ay bixisaa, waa isku macna ukulaha miraheeda ayay bixisaa. walam tadlim kama dulmisa minhu xaggiisa shay-an waxba. fasal ay baaqata ma jiro, xilli ay baaqata ma jirto. mar kasta miraheeda way bixinaysaa, wayna dhalinaysaa. ninkaas la siiyeyna shay laga dulmiyo ma jirto, beertii marna ma baaqato. wafajarnaa waxaan dhambalnay oo aan dilaacinay ama aan jeexnay khilaalahumaa labadaa beerood dhexdooda naharan webi. biyaha laftigeeda biyo kanaal iyo waxyaabo kale u keenaya ma aha. webi meeshaa ku yaalo inta matoor lasoo saaro loo soo tuura ma ahee, biyaha webiga waraabinayana labada beerood dhexdooda yaa looga burqiyey buu dhahay ilaa subxaana wa tacaala. wadarib yeel oo waxaad u samaysaa lahum ayaga mathalan tusaale rajulayni laba nin oo jacalnaa aan u yeelnay liaxadihimaa midkood jannatayni laba beerood oo min acnaabin canabya ah. labadaa beerood waa wada canab buu yihi ilaa subxaana wa tacaala. waxafafnaahumaa waxaana ku xafifnay oo aan ku soo wareejinay binakhlin timir. wajacalnaa waxaan yeelnay baynahumaa labadaa beerood dhexdooda zarcan abuur. kilta aljannatayni labadaa beerood mid kasta oo ka mid ah aatad waxay siisaayay ula timaada ay dhalisaa ukulaha miraheedii wixii laga cuni lahaa. walam tadlim mana dulmiso minhu ninka xaggiisa shay-an waxba kama dulminaysa beertii, macnaha fasal ay baaqanaysa ma jirta, xilli kasta way soo go'daa. wafajarnaa waxaan dilaacinoon jeexnay oo aan ka burqinay khilaalahumaa dhexdoodana naharan webi. wa kaana lahu ninkii waxaa u sugnaaday hamarun miro, himaar iyo miro fara badan buu yeeshay. faqaala lisaaxibihi saaxiibkiisii ayuu ku yidhi, waa marka hadda imtixaanka meesha loogu dhacayay, meeshii loogu barmuusayay, wuxuu ku yidhi wahwa yuxaawiruhu asagoo la doodahay waa ninkii kale, ana akharu anaa ah mid kaa badan minka xaggaaga maalan xagga maalka. maxaad haysataa buu yidhi, faqiiraa tahay, meelaasaad ku dugdukataa, kumigaad hesho maskiin baad siisaa, subaxii dambe waxaad cunto ma haysatid. waad u jeedaa waxyaabaha aan markaa haysto iyo sidaan u tamatucaayo. kilta aljannatayni labadaa beerood mid kasta oo ka mid ah aatad way bixisaa oo waxay siisaayay dhalisaa ukulaha wixii laga cuni lahaa, waa miraheedii. walam tadlim minhu shay-an shay ay ka dulmisaana markaa ma jira xaggiisa. wafajarnaa waan burqinay, wafajarnaa waxaan dilaacinay khilaalahumaa oo aan jeexnay khilaalahumaa dhexdooda, waa labadaa beerood dhexdooda naharan webi. wa kaana lahu waxaa u sugnaaday ninkii hamarun miro iyo himaar. faqaala wuxuu ku yidhi lisaaxibihi saaxiibkiisii, wahwa asagoo yuxaawiruhu la doodayo la murmaaya, ana aniga nin yahow akharu kaa badan minka xaggaaga maalan xagga maalka kii badan baan ahay. wa acazu sharaf badan nafar xagga dadnimada. maxaad dad tahay buu yidhi, waxaad haysatid ma lehe, sharaf iyo dadnimo ma lihid, waxaad leedahay ma laha. saa darteed ana akharu minka maalan anaa ah mid adig kaa xoolo badan oo kaa maal badan. wa acazu kaa cizi badan oo kaa sarreeya oo ka sharaf badan nafaran xagga nafarka, cadada, tirada, dadnimada, cashiirada, qabiilka
intaasoo dhanna anaa kaaga cizi iyo wanaag badan, anaa kaaga sharaf badan buu yidhi. wax aad tahay ma jiro, wax kuu sugnaado xoolo ah ma laha, wax dadnimo aada leedahay ma jiro, xoolo aada leedahay ma laha. bacdamay xaaladdu sidaa tahay ayuu yidhi anaa ah mid kaa badan xagga maalka, xagga dadnimadana kaaga sarreeya. wasbir, xabis rasuulka ilaahayo, ama ku sabarsii nafsaka nafsadaada maca aladiina kuwii micigooda yadcuuna caabudahayay rabbahum rabbigood bilghadaati aroortii waalcashiyi iyo galabtiiba, yuriiduuna ayagoo doonaya xaal ayin kuwii raboo raadinaya wajhahu ilaahay wejigiisa. walaa tacdu ha dadbin, ha iilin caynaaka labadaada indhood canhum xaggooda ha ka leexinin, oo intaad iska dhaafto wax kale xataa ha ka jeesanin. turiidu adoo ah mid doonaya ziinata alxayaati addunya, xayaatadan ee adduunkee dhow quruxdeeda. walaa tudic ha ateecin man mid akfalnaa aan daboolnay qalbahu qalbigiisa can dikrinaa, dikrigeena iyo diinkeenii qur-aankeena aan ka daboolnay. watabaca raacay hawaahu hawadiisii, wa kaana amruhu amarkiisana uu noqday furutan mid markaa xadgudub ah. waqul dheh alxaqu xaqu min rabbikum rabbigiin xaggiisuu ka ahaadaya. faman shaaa qofkii rabaa falyu'min ha rumeeyo, waman shaaa qofkii rabana falyakfur ha ku kufriyo. inaa anagu actadnaa waan diyaarinay lilظaalimiina dhaalimiintii dulmi sameeyayaashii mushrikiintaba naaran naar axaada koobaysaa bihim ayaga suraadiquhaa daaheeda ama gidaarkeeda. wain yastakiifuu haddayna gargaar weydiistaanna yuqaafu waxaa loogu gargaarayaa bimaa-in biyo oo kalmuhli naxaas la dhalaaliyey oo kale ah, ama gufartii wasaqda saliidoo kale ah aad u kulul. yashwi lwujuuha wejiyaalka diiraya oo fiiqaya amase wejiyaalka gubaya dubaya. bi'sa sharaabu sharaab ayaa baas leh. wasaa'ad waxaa xumaaday murtafaqan meel ay murtafiq iyo raaxa ay ka dhigtaan iyo meel ay ku xusulaystaan ama ay ku dangigaan ay ku raaxaystaan, naartaasaa u xun. ina aladiina kuwii aamanuu rumeeyey wa camiluu asaalixaati camalada fiicanna qabtay, inaa anagu laa nudiicu dayici mayna buu yihi ilaahay ajra man abaalkiisa axsana wanaajiyey camalan camalka. ulaa'ika kuwaasi lahum waxaa u sugnaaday leeyihiin jannaatu cadnin jannooyin nagaadi ah, nagaashaha iyo waaridda jannooyinkeeda tajri waxaa soconaya min taxtihim xaggooda hoose alanhaaru webiyaalo. yuxallowna waa la qurxinayaa fiiha jannooyinka gudahooda min asaawira jijimooyin oo min dahabin dahab ah. wayalbasuuna waxaa loo xiraa oo loo labisayaa hiyaaban dhar khudran oo cagaaran oo doog ah, oo min sundusin xariirta mideeda jilicsan iyo waistabraqin midda adagba ah. muttaki'iina waxay ku dangiigayaan ay ku raaxaysanayaan fiiha jannooyinka gudaheeday ku xusulaysanayaan cala al araa'iki sariiro qurux badan oo waaweyn. nicma thawaabu thawaabi abaal baa nicmo lahaaday. waxasunad waxaa wanaagsanaaday murtafaqan meel ay ku dangiigaan ay ku xusulaystaan ay markaa ku raaxaystaan. wadarib yeel lahum ayaga waa ummadee maalan ama reer maka tusaale uga dhig rajulayni laba nin jacalna aan u yeelnay liaxadihimaa midkood jannatayni laba janno iyo laba beerood oo min acnaabin canab xaggiisa ka ahaaday. waxafafnaahumaa aan ku soo wareejinay binakhalin timir. wajacalnaa waxaan yeelnay baynahumaa labadaa beerood dhexdooda zarcan abuur kaloo kala duduwan. kilta aljannatayni labadaa beerood mid kasta oo ka mid ahna aatad waxay bixiso ay dhalisaa ukulahaa miraheeda. walam tadlim iyo wixii macnaha la cuni lahaa. walam tadlim minhu mana dulmiso xaggiisa shay-an waxba oo ma baaqato. wafajarnaa waxaan jeexnan burqinay oo aan dilaacinay khilaalahumaa labadaa beerood dhexdooda naharan webi. wa kaana lahu waxaa u sugnaaday ninkii thamarun thimaar. wa kaana waxa u ahaa oo u sugnaaday lahu ninkii thamarun thimaar iyo miro fara badan. faqaala lisaaxibihi saaxiibkiisii ayuu ku yidhi wahwa asagoo yuxaawiruhu la doodaya ana aniga akharu badan ninka xaggaaga maalan xagga maalka. wa acazu aniga cizi badan oo sharaf badan nafaran xagga dadnimada. nafarkii dadnimadana anaa kaaga fiican ayuu yidhi. intaa kabacdi waa dhaqaaqayaa markuu saaxiibkii la dooday. kadibna beertiisii buu gelayaa. mar allaala markuu galana hadal aan fiicnayn munaasabna aan ahayn adduunkiisii aakhiradiisiina halaagtay
ayuu ku hadli doonaa sida aan arki doona casharka noo soo socda, balse meesha ha inoo joogto. wabillahi tawfiiq, wallahu subxaanahu watacaala aclam.